dadku xisbiyay kala raaceen oo codeeyeen noomaydaan codayn oo nuguyan taageeran islaaya oo fidman u horseeda waxaan u kala dooranaysaa sidaa qabo wartalowkee waxaa wanaagsan ay akhriyaan ilaa wixii aad ogeedeen baan shubaynay waxaasaa wanaagsan mid wala kala afsoomaali waa ka badinaya waxaan u kala dooratay keebaa talow wax furin kara dee dadku waa isqabtay war kanaa roon iyo kanaa roon baa lagu kala codeeyey mid buu codka u batay waa aniga dhammaantiin waxaan idinka jawaabaya xisbi kasta ah oo wixii aad doonayseen aynbaa waddadeeda qabanaya ee horumarka ahaa haddaan ka leexdo kii kulmiye ahaa iyo kii wadani ahaa iyo kii cudama kalarkaysto qaba war sidaad leedahay dee waa kugu qabsoomaya markiina guddoomiyaha cabdiraxmaan ee wadani laba goor u hadlay maalintii uu dhiibaya baa ahaaday uu yidhi waan ogolahay natiijadii wuxuu yidhi oo midiyahu ka yidhi umaan tanaasulin ninka aanu tartamaynay umaanaan tanaasulin xisbiga aanu tartamaynay qarankaanu tanaasulin waa iska oray haddii qaranka loo tanaasulay wax kama qabno waayo waa guul laakiin bal hadda dib u baara qaamuska siyaasadda oo haddaad qofkii kula tartamaya aanu tanaasulin xisbigana aanu tanaasulin miyaa tanaasushay qoladiina dhakhaatiirtu bar hadda mar akhriya diiwaanka siyaasadda oo annaga mar baanu asbarogay bowsanaaye bal arrintaana xalkeeda hala helo haddaa ayaa loo tanaasulay dee ilan dadkii bar buu ka reebay markaa dadkii taageersanaa dee xisbigii kale iyo ninkii la doortay waa la col dee markaa bulshadii qayb baa coladee waxbaa la hayaa dee in la sii wadaayahay waxaanu sugaynay markay cadhadi dunto cadho waa la baryaaye ay ka soo wareegto in xisbiga wadani iyo guddoomiyuhu luqataa ka qabow dee yidhaahdaan ummadda u diraan daraad markii wax dhaceen anoo idinkeed ka baqaaya oo dadkii codeeyey ixtiraamaya oo kuwaanay codeyn ee aan maanta madaxooda ixtiraamaya anoo xaaladeenna guud oegaya ninkii ugu horreeyey telefoon diray markii dagaalkaasi dhacee uu soo gaaray cabdiraxmaan buu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadani waxaan u codeynaya xisbiyada dadku ayaa dee hogaaminaya qabeeladana ka baxnaan mashaakilka waa anagu xalila dadku dee anagana dhegeystaan noo codeeyey runtii naga firiya idinkama fiicinin laakiin waana karaamayseen markaanu ixtiraamnayda ahayd anoo taa ka duulayaan la hadla waxaasaa dhacay gooraba kusoo caawur soo dhaqsaan kula martidoon baa jirtee caawa haddaad baridaha fadhiin uu tegey boorku ka hadlay wuxuu ka bilaabay walaalayaal doorashada waanu hadlay soo maynaan hayn haabena dadka dhegeysanayay walaalayaal kulmiyaanu amaahinay waan aniga waa laysoo sheegay waxaan saasuu yidhi cajaladii hadduu doontay waan dhegeystay waxaan leeyahay haddii qaamuska siyaasadda laga helo xisbi doorashadii walaga xisbi kala amaahiyey waa mid ugu cusub ah laysoo sheegay waxaanse leeyahay haddaanu kulmiya nahay xisbigii kulmiya iyo murashaxii kula tartamayey annagu ma qabna inaad amaahayso doorasho waxaanu qabnaa inuu tartamnay si cadaalada laynoogu qaybiyey tiradii laynoogu hubiyey aad ka dacwootay aada tiri meelaha qaarkood goobaha qaarkood iyo kursiyada qaarkood ay baaro in la baaro weydki idin xalibnayd oo aanaan ka hadal oo la hubiyey oo aynu 80,000 oo cod ku kala badnay baan qabaa oo feer iyo daacadahay waxa isweydiin leh haddii maanta 80,000 uu leeyahay waynu helo waa layna amahiyo waa layna boobay cabdiraxmaan uu xisbigiina uu hogaaminayo doorasho dambana uu ku noqon doono oo talow tiro yar oo lagu burba hadduu keeno 80 iyo 70 muxuu yeeli doonaa ilaa rag baa ka tagay 80 iyo 70 waxaan leeyahay xisbiga kulmiye wadani halkii baanu ka haynaa walaalnimo qadarin mucaaradad inta aynu wada leenahayna aynu wada ilaashano intaynu isku khilaafsannahayna waan idin ogola dhaliishaan ogola waxaan ogolay marka hore nagu soo horeysaan inaanu talada qaranka dhexaysa aanu kala tashano haddaad u gara wadaan dadka u sheegtaan haddaad qalad ugu haysaan inaad dadka u sheegtaan inaga waaymaysaan biniaadam gaf naga waaymaysaan waad in badan baa naga heli doontaan ku filan dowladda baan biniaadmi oo qaladka wale mucaaradana waxaan u samaynay inay toosisa ka xilka haya uma inaan samaysan inaynu dee colaaw dadka ku hayno iyo waxbaa maqan iyo afgarshaan waxaan hortiina ka caddaynaya oo qarankana u sheegaya waxaan ogolahay ixtiraam waxaan ogolahay wadatashi waxaan ogolahay qadarin intay xisbi in talada dalka ee guud dhinaciina ka joogtaan inaydaan qaladkeeda noo qarin
in ra'yigiina ayna naga fiicantihiin oo naga fiicnaada maamulka aad xisbigiina iyo programkiina iyo mikrofoonkiina ka wataan intaba diyaar baan u nahay laakiin dayeen ahayn uu dadkii colaadiina kan waa la dhacay inanka dee codeeyay iyo inanta codeysay ee intaasoo dagaalo martay ee maalin cid u tagnay ilaa waa lagu dhacay maalin waa lagu dhacay dee colaad ka bixi mayso marka waxa la taana aynu nabadda ku soo celino